farmaajada waxa ay ka mid tahay cunooyinka nafaqada badan ee laga helo caanaha xoolaha ayadoona farmaajada laga sameyn karo caanaha kala duwan ee xoolaha dalkeena laakiin dadka Soomaaliyeed kama faa'iideystaan caanaha xoolaha Samira Maxamed Sheekh waa gabadhii ugu horeysay ee Muqdisho ka hirgelisa shirkad sameysa farmaajada ayadoona ay ka iibsadaan farmaajada ganacsatada waxa caawiya aabaheed iyo walaalkeed inta ay ku guda jiraan howlahooda shaqo waxaan ku booqanay goobtooda ganacsi si aan u ogaano qaabka ay u sameeyaan farmaajada qaabka loo sameeyo waa qaab kala duwan hadba farmaajada nooca aan sameynaysa ku xiran tahay laakiin badanaa waxa dhacdo caanaha ayaan dalbanaa waxaana looga keenaa qolo caanaha lo'da meel ku xareyso oo la yiraahdo som milk haday ay tahay caano lo'aad haday tahay caano geelna meel kale ayaan ka keensanaa kadib jeeg waaweyn lagu keenaa caano oo markaas la soo lisay oo kuleel ah markii anagana loo keeno waxaan isticmaalnaa makiinado anaga haysano oo pasteurizing caanaha la kululeeyo si ay jeermiska uga dhintaan kadib markii jeermiska ay ka dhintaan oo digriga heerka aan rabaan geeyno waa la qaboojiyaa markii la qaboojiyo kadibna qaabab kala duwan la sameeyaa hadba marka farmaajada aan rabay inaan soo saaro daawooyinkeeda isticmaalnaa kadibna waxa lagu shubaa weelal loogu talagalay in farmaajada foomka ay rabto inay yeelato marka kadib ay in muddo oo leysa oo nooca aad rabo hadaan rabo fresh inaan sameeyo kale isla markaa la cunaayo waa la xirxiraa caagada lagu shubaa kadibna markaa qofkii soo dalbada loo geeyna saas ayaa lagu sameeyaa farmaajada xirfadan waxaan ku soo bartay waxaan u galnay iskool ku yaala dalka Sweden waliba waqooyiga Sweden ayaan ku soo baranay anagoo meelo kala duwan tagnay waliba waxaan bilownay adigu sanadkii hore dabiiqadiisii waxayna nagu qaadatay ilaa sanad ilaa inta aan ka gaareynay heerkii aan rabnay macnaha darajadiisa waa tahay marka aad baranaysay fikir noocee aad ka aaminsaneyd farmaajada runtii aad u xiiseynayay maadaama aan rabay in aan dalkayga u soo laabto oo waxaan aan gacanteeda ku sameeyo oo aniga asalkii hore farmaajada aan jeclaa cunto karintana aan markii hore u isticmaali jiray farmaajooyin kala duwan haddana aniga og macnaha productiga aan haysto isticmaalayo aad ayaan u xiiseynayay yaa ku caawiyay markii aad sameysay waxbarashadaas waxaan wada jir ku galnay aniga aabahay ayaa sameynaa hadda waxaana badanaa gacanteena midig taagan walaalka iga yar oo asagana gacan yarahayga runtii bandhigaas waxa ila soo xiriiray yar meesha jooga oo ka shaqeynayay ayaa isoo weydiiyay kadibna maxay ahayd waan ka jawaabay ma xiisaynaysaa inaad ka qayb qaadasho programkaas kadibna waxaan la kulmay qoladii qaban qaabinaysay oo iyaguna ahaa Swedish oo markaa igu soo cusubay programkaas inaan ka qayb galo waxayna nagu qaadatay muddo gaaban adigu 2 week gudahees ayaa lagu diyaariyay waxaan weydiinay sida ay ugu suura gashay in ay ka hirgeliso magaalada Muqdisho shirkadani sameysa farmaajada runtii markii hore waxaan ku tala jirnay inaan tijaabo ku bilowno waxa gacan weyn iga siiyay oo hadii jeer garabkayga taagnaa aabahay Maxamed Sheekh Cabdi oo u sabab ahaa inaan Muqdisho imaado oo soo laabto marka kadibna xiriir ayaan asxaab kala duwan la yeeshay ayaga ayaa ii hirgeliyay inaan xiriir kala duwan la sameeyo maqaayadaha ama hoteelada waaweyn sidee ugu dhiiratay marka inaad shirkadan furto waxaan ogahay wax walba horta inay macquul yihiin oo qofkii dadaala oo meel uu ka bilaabo wax isku daya in uu ka salgaarayo marka waxaan jidkii loo marayay inaan bilaabo ayaan maray anigoo markaas u isticmaalaya waxay ahayd meelo kala duwan oo marka wadanka marka ay mid shirkadii diiwaan geliyay wasaaradda ganacsiga aan tagnay macnaha shatiga aan soo qaadanay hadba sidii kadib waxaan sameynay dhismo meeshan aad arkaysaan markii hore waxay ahayd 2 qolo yar yar kadib waan balaarinay waxaan dhisnay qol qaboojiye ah oo farmaajada ama waxyaabo aan markaa sameynayo la geliyo iyo meel aan ka shaqeyno anagoo had iyo jeer isticmaalayna dhinaca nadaafadda maadaama la sameynayo farmaajo waxa aad muhiim ah nadaafadda in laga fikiro qalabada isticmaalaysa in ay jeer nadiif ku ahaadaan inaan la isticmaalin biyaha tubada oo biyaheena anaga gooni u karsanaa
markaan biyaha karino oo sterilize aan ka dhigno kadib ayaan isticmaalnaa biyaha ama weelkeena ku dhaqano badan had aad u xiiseenayo marka anagana waxaan ku hanweynahay inaan u iibgeyno makhaayadaha meelaha farmaajooyinka laga isticmaalo iyo dadka shacabka caadiga ah markii aad u tiri jirtay dadka ganacsatada ah ee jooga magaalada Muqdisho waa dahdid waxaan farmaajo sameeyaa meelkeena marka fikir nooc ka aaminsan runtii aad iyo aad loo soo dhaweeyaa macnaha maadaama ay wadanka ka maqan tahay farmaajo dalka gudihiisa lagu sameeyay qof walba aad u xiiseynaya soo ilaa hadda qof diiday ma arkin intooda badan qof walba wuxuu rabaa inuu dhadhamiyo oo arko waana la soo dhaweynaa wax wadanka looga baahan yahay Samira waxa isku dayday inay farmaajada ka sameyso caanaha geela oo aan lahayn wax dufan ah Samira ayaa dadka Soomaaliyeed kula dardaarantay in caanaha xoolaha Soomaaliya ay yihiin caano saafi ah oo nafaqo badan oo dhan walbana looga faa'iideyn karo dadka Soomaaliyeed xilliyada ay jiraan abaaraha waxaan baa ku jeedinayaa in dadka aan aqoonin isticmaalka farmaajada ay tijaabiyaan ay farmaajadu tahay mid anfacaad fiican u leh dhinaca caafimaadka dhismaha jirka nafaqo badan ay leedahay lafaha ay dhisto waxaanan ku hanweynahay xoolaha markii xilliga abaarta markii guga oo kale oo xooluhu ay caano badan yihiin in caanahooda la farsameyn karo oo la kaydiyo si loo isticmaalo xilliga abaaraha ay jiraan Raxmi Yuusuf Jimcaale telefishinka qaranka Muqdisho